madaxa kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ayaa aaminsan in labada ciyaaryahan ee Higuain iyo Dybala ay sameeyeen kaga dhaqaaqi doonaan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus maadaama labada ciyaaryahan baa la hadalhayay inay iskaga dhaqaaqi doonaan kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ayaa ninka kan lagu magacaabo Nedved waxa uu leeyahay runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in Higuain uu baaqi ku sii noqon doono kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus sidoo kale waxaan rumaysnahay isla xidiga Paulo Dybala uu saddex ku degdegi doonina dalabyada ka soo gaaraya kooxaha waqtiga kan xaadirka baadi goobaya ciyaaryahankaasi warbixinada kale ayaa markaa qoraya in ninka kan uu aad markaa u xiiseynay labada ciyaartooyba in waqti kale ay la sii qaataan kooxda Bianconeri Juventus maxaa yeelay Paulo Dybala ayaa waxa xiiseynaya dhowr kooxood ee markaa ka dhisan horyaalada Ingiriiska Spain iyo sidoo kale Ligue 1ka wadankaasi Faransiiska kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ayaa in muddo waxa ay ka dhaadhicinaysay Dybala inuu sar ku fudaan ka dhaqaaqista Turin maxaa yeelay Dybala ayaa hore wax uu sheegay in aysan farxadiisa ahayn in uu la sii joogo kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus taasi oo walwal xoogan gelisay qaar ka mid ah taageerayaasha faraha badan ee kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus in Dybala uu si fudud kaga dhaqaaqo kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid kabtan Sergio Ramos waxa uu leeyahay wali waxaan ciyaaryahan aad ugu qanacsan mustaqbalka kooxda kubadda cagta ee Real Madrid لاعبكان كابتن سيرجيو راموس ayaa markaa xusay inuu diiday dhowr dalab ee ka soo gaaray horyaalka wadankaasi Ingiriiska maxaa yeelay wuxuu kabitaanka uu leeyahay anigu waxaan ahay wali ciyaaryahan aad ugu qanacsan qab ciyaareedka kooxda kubadda cagta Real Madrid wali niyadeyda ma aysan ka dhaadhicin inaan mar uun ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Real Madrid Sergio Ramos oo waqti dheer la soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa koob aad u fara badan waqtiga kan xaadirka kula guuleyso kooxdaasi Sergio Ramos ayaa kooxda kubadda cagta Real Madrid waxa uu ku soo biiray 31 Agosto ee sanadkii 2005 xilligaasi uu ka soo ambabaxay kooxda kubadda cagta Sevilla balse heshiiska kooxdaasi waxa uu kaga eg yahay tan iyo sanadka 2021 Captain Sergio Ramos ayaa xil ciyaareedkani waxa aad u raadinaysa kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus kadib xiisaha kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus uu soo gabagabeeyay madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Florentino Perez oo markaa sheegay in aanan laga marmin Sergio Ramos ayaa wali waxa uu leeyahay mustaqbalkiiga ayaan rajeynayaa inaan xifradeeda kubadda cagta aan ku soo gabagabeeyo garoonka Santiago Bernabeu waxaa sidoo kalena aan aad u jeclahay dhammaan taageerayaasha dunida meel waliba ay ka joogaan ee Real Madrid Sergio waxa uu leeyahay haddii ay dhacdo mustaqbalka inaan ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaan gabi ahaanba ka fariisan doonaa xifradeeda kubadda cagta sida aan u jeclay kaliya kooxda kubadda cagta Real Madrid tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kamid ah shakhsiyaadka aanan ku qanacsaneyn wiilka Rachel Alexis Sanchez in uusan waxba ku soo kordhin karin maadaama laacibkan u dhashay wadankaasi Chile Alexis Sanchez oo waqtiga kan xaadirka uu leeyahay waxaan doonayaa in la isiiyo fursad aan ku soo bandhigo natiijooyin wax ku awla ay markaa ku qancaan maamulka iyo taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United Solskjaer waxa uu leeyahay ninka kan Alexis Sanchez wuxuu aad u wanaagsanaa marka uu ka tirsanaa kooxda kubadda cagta Arsenal tan iyo xilligu ku soo biiray Manchester United sanadii 2018 Manchester United wax natiijo muusan ku soo kordhinin kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wiilka kan Rachel Alexis Sanchez wax uu ka qaadanayaa toddobaadkiiba adduun 500 oo kun oo lacag Jabaanka wiilka Rachel Alexis Sanchez ayaa 32 kulan uu ka soo dhex muuqday Old Trafford waxa uu kaliya u dhaliyay 3 gool taasina ma aysan ku qancin maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United waxaana arinkani loo sababeynayaa in Alexis Sanchez markii horeba ay ku degdegeen maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United inba ay la soo wareegaan kooxda ka dhisan horyaalka wadankaasi Talyaaniga Inter Milan ayaana rajeynaysa in arintani ay kala xajooto madaxda kooxda kubadda cagta Manchester United maadaama Alexis Sanchez aan waqtiga kan xaadirka Manchester United aysan u baahneen ayadoo maalinta Isniinta ay footi nagu saysa la aaminsan yahay in Inter Milan ay noqon karto kooxda ugu dambeyn la wareegi karta ciyaaryahankaasi Rachel Alexis Sanchez waxaana mushaar ahaan loo ballan qaadayaa adduun 4.5 milyan oo lacagta Euroga tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester United waxa uu leeyahay mushaaraadka aadka u faraha badan ee Sanchez uu ka qaadanayo kooxda Manchester United waxa fursad wacan loo siinayaa xidig walba ee wax weyn ku soo kordhiya kooxda kubadda cagta Manchester United tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur macallin Pochettino ayaa meesha ka saaraya sheekooyinka ku aadan in laacibka
ودشوا waddankaasi Denmark Christian Eriksen oo toddobaadkii soo socda ka dhaqaaqi doona kooxda laacibkani ayaa baryahan waxa aad u xiiseynaya labada kooxood ee Real Madrid iyo Bianconeri Juventus xil ciyaareedkani ayay markaa qorsheynayaan inay ka soo ambabixiyaan garoonka kooxda Tottenham Hotspur macna Pochettino waxa uu doonayaa in laacibkani Christian Eriksen uu baaqi ku sii noqdo xil ciyaareedkani maxaa yeelay waxa uu sheegay in laacibkani uu ka mid yahay ciyaartoyda line-up-ka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur sida uu xusaya macna Pochettino balse maamulka kooxda kubadda cagta Tottenham waxay qabaan fikir ah in 27 jirkan Christian Eriksen gabi ahaanba laga fasaxo kooxda ayagoo xusay in Christian Eriksen in ka yar 5 milyan oo lacagta Euro-ga inuusan kaga dhaqaaqi doonin kooxda labadani kooxood ee sida weyn u baadi goobaya xilligan Christian Eriksen Real Madrid iyo Bianconeri Juventus cidii bixisa 5 milyan oo lacagta Euro-ga ayana marka loo gacan gelin doona 27 jirkani ka soo jeeda waddankaasi Denmark Christian Eriksen sida marka ay shaacinaysa jirada The Daily Mail madaxda sare kooxda kubadda cagta Real Madrid-na wali maysan ka rajo dhigin hamigoodii ku aadana wiilka reer Brazil ee Neymar madaxa kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa marka kalsooni weyn ku qaba inay Barcelona wali ay kula dagaalami karaan wiilka reer Brazil ee Neymar kadib markii ay dhowr dalabyo kala duwan ay ka gudbiyeen labada kooxood ee Real Madrid iyo kooxda kubadda cagta Barcelona kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain ayaa wali waxa ay dhagahooda ka yeeraya qiimaha dhan 222 milyan oo lacagta Euro-ga oo Neymar markii hore ay kula soo wareegeen xilligaasi uu ka soo ambaxay kooxda kubadda cagta Barcelona haddaba kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa isku day xoogan sameeysa maalinta ka dambaysa hore waxay u soo bandhigtay ciyaaryahano iyo sidoo kale lacag aad u fara badan balse waqtigan xaadirka wali waa ay ku taagan tahay wadadii hore ugu dhawaaqday kooxda kubadda cagta Real Madrid oo ahayd in laba ciyaaryahan iyo lacag la israacin doono balse maamulka kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ayaa doonaya in u dhiganta qiimihii hore ee Neymar kaga soo iibsadeen Barcelona in ay ka helaan kooxdii markaa bixinaysa si ay kaga fasaxaan kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain laacibka qadka dhexe ee ka soo jeeda waddankaasi Kenya Victor Wanyama ayaa dhinaca kale doonaya inuu ku biiro kooxda AC Milan ee horyaalka waddankaasi Talyaaniga Victor Wanyama ayaa dhawaan waxa dalab ka soo gudbisay koox ka soo jeeda waddankaasi Belgium balse wiilka reer Kenya ee Victor Wanyama ayaa markaa sheegaya haddii uu saga dhaqaaqayo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur inuu cagdhigto AC Milan waxaana uu sheegay Victor Wanyama in uu aad u jecel yahay kooxda kubadda cagta AC Milan hore ayay kooxda kubadda cagta AC Milan waxay dalab ka gudbisay wiilka reer Kenya ee Victor Wanyama waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay waqtigan xaadirka in dalabkaasi uu soo dhaweeyo madaxda kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur waxay leeyihiin Victor Wanyama wuxuu garoonka uu kaga dhaqaaqi karaa adduun dhan 12 milyan oo lacagta Euro-ga in ka yarna marna uma suurtagali karto in ay markaa kooxi ciyaaryahankaasi ay la wareegto kooxda Bianconeri Juventus ayaa markaa diyaar u ah inay la soo wareegto xidiga Dembele ciyaarankani Musa Dembele ay maamulka kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus waxa ay ku tilmaameen inuu yahay xidig mucjiso leh maadaama waryaankan u dhashay waddankaasi Faransiiska oo wacdaro xoogan oo muujinayo taa oo raali gelisay maamulka kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus madaxa kooxda kubadda cagta Bianconeri Juventus ayaana markaa waxa uu leeyahay anigu aad ayaan ugu riyaaqay qab ciyaareedkiisa waxaan rajeynaynaa in toddobaadkan aynu ku soo guuleysano ayaa laga soo xogtay madaxa kooxda kubadda cagta ee Bianconeri Juventus Lyon ayaa markaa ku doonaysa lacag aad u fara badan ku dhawaad 30 milyan balse Musa Dembele ilaa iyo hadda muusan cadeenin kooxda uu doonayo Juventus ayaa ugu horeysa kooxaha doonaya xidigaasi reer France ee Musa Dembele ugu dambeyntiina kooxda ka dhisan horyaalka waddankaasi Turkiga ee Fenerbahce ayaa si amaah ku doonaysa inay kula soo wareegto xidiga reer Germany ee Boyton sidaba ay xusayaan warbaahinada laacibkan ka tirsan kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Boyton ayaana markaa la sheegay inay aad u xiiseynayaan kooxo aad u fara badan kooxdani ka dhisan horyaalka waddankaasi Turkiga ee Fenerbahce ayaa markaa si gaar ah u sheegtay in diyaar u tahay heshiis wada hadal ah amaaha marka ay la gaaraan madaxda kooxda kubadda cagta Bayern Munich si ay kaga dhaadhiciyaan maadaama xidigan uu ka mid yahay ciyaartoyda kooxda kubadda cagta Fenerbahce ay doonayso inay ku xoojiso qaybteeda dambe ee daafaca Boyton ayaana markaa la sheegay inuusan ku qanacsaneyn ka dhaqaaqista kooxda kubadda cagta Bayern Munich laacibkan reer Germany ee Boyton ayaa laga yaabaa in uu u dhaqaaqo magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga madaxda kooxda kubadda cagta Fenerbahce waxay kalsooni weyn ku qabaan in aysan ka diidi doono maamulka kooxda kubadda cagta Bayern Munich arinta amaahda ah ee xidiga reer Germany ee Boyton tan iyo xubinta xigta inta dib dambe u kulmi doono waa saaxiibkeen Maxamed Ibrahim Biwa oo ku dhaafiya sida iyo nabad